afkayga intuu jiraa inta la geeyay hadaan dhimo dhahe way wallahi ugu bilaad way dhaari kartaa ninkii walaalkiisay ayuu wuxuu u dilay baasta darteed baastada digsiga uu qabtay afku dhulka u galiyay jirgaanka la jaray waxa ku riday baastada ka soo hartay war Cabdi Mawliid oo isdeji saaxib waxaan badar leh waa badaran la isku madagaale isdejiya ma aragtay aadaan qorganta saas uu qabsaday abukuse ninka afkiisa wuxuu dhahay hadanta dhantaaga waa maalin kale oo jiidda hore lagu qaadayo maxkamadeen iyo kiis hugub ku ah maqalka dhagaha shacabka waana dil ka dhashay baasto sidii loo kala qaadan lahaa la isku qabtay tuulada xaawo gadiid oo moqokori hiiraan ka tirsan maalin ku taariikhaysan 16 bishan dable xoogga Cabdiraxmaan Mawliid Axmed ayaa ku eedeysan inuu dilay marxuum ex dable xoogga Yuusuf Xuseen Cabdulle Yuusuf Carab oo kala tirsanaa ururka labaad ee guutada Cali bin Abi Daalib sababta ayaana ahayd muran ka dhashay qaybsiga anfurkii loogu talagalay unugtooda oo la isku fahmi waayay waxaana uu ku dhuftay hal baalood oo marxuumka ka haleeshay feeraha waa kan xafiiska xeraalinta ciidamada qalabka sida oo garsoorka sharaxaad ka siiyay kiiskan iyo sida ay wax u dhaceen maalintaasi mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha iyo marxuumka inta uusan dilka dhicin ka hor waxaa lagu murmay oo weliba muranka eedeysanaha ee marxuumka kama dhicin waxaa lagu dagaalay raashin baasta ah waxaa la sameeyey marka raashinkii markii la kariyey kabacdi ayaa waxaa yimid Cabdi Mawliid oo hurdaayay hurdada ka soo kacay baastada asiga ma lahayn asiga ma karin asiga ma keensan waa soo kacay askartan oo waxooda karsadeen ayuu wuxuu intuu yimid wuxuu sameeyay darbo ku dhiftay raashinkii darbada markuu ku dhiftay kabacdi wuxuu doontay qora aake ah qora ma wadanin wuxuu doontay qora oo soo qaatay soo u soo socday wuxuu ku dhiftay Allah u naxariistay marxuum Yuusuf wuxuu xabad kaga dhiftay naaska midig waxa ka baxday kilkisha bidix markuu xabadu ku dhiftay kabacdi wax gargaar ah uma sameeyeen wuxuu yiri si jaajas loo wuxuu yiri hadaa rabta dhimo intaas markuu uu sameeyay kadib ma bixina wuxuu sameeyay digsigii weelkii baastada ku jirto intuu kortugo hadana xabad ku dhiftay waa galay dilkaas sida wax u dhaawacay taa macnaha ninkan walaalkayga inaad dilaan uma kicin waajifay markii hore saasayta anagu u kicina macnaha rag oo macnaha waxa arkay askartiga oo kamid ah macnaha aniga badar inuu karinayo mid kamid ah oo asigii macnaha kula dhigay ninkaas oo marxuumka kula dhigay badarka aniga waa darbiyay badarka sidaas awgeed uu darbiyay kula dhigay asiga hore u cunay badarka kadib markaan darbiyay ninkan odaga waa badarka hadana biyaha ku shubay markaa biyaha ku shubay oo gurtay sababtina meesh way tiilayo oo qaaday badarka markuu qaata sababtii aniga sii waday wax qoran waa la macili kare ninkii aan ka daba tagay walaaltinimo iyo cilimaaga markuu cilimaaga iga leexday aan dhaay mar amaankii furnaaye iga leexday aan dhaay waa ku fakata baalootada biriq xabada waxa ugu dhacday dhinacan garabka asay wax ka baxday geeska si bareerna iga meehano si waxa waaye oo macnaha waa iga fakata maan aniga bareer uma dilin walaalkayga laabteedina kama soo go'ay inaan dilabo ومانا كان بالديغاس بدرka ku jiro bisa oo ka macna inaan toos wada qadno meeqa baalooto ridaday hal baalooto asiga ku dhacday baalooto dhulkayga dhacday baalooto markaas ku dhacay iga fukato marka caagan oo agtaan caagay ku dhagshay gacantiina ku bax waa qirsanahay laakiin laabta qofka qalabtiisa wax walba ka soo go'da isma dhin walaalkaaga adiga laabtiida horta kama soo go'in inaan dilo uma qaadana qorigaas aniga balse waxa u qaataan macna inay macna badarkaas bis u qaatma walaalkayga inaan dilo uma qaadan aniga haweenta inaan asla jifnaa gud hal gudaas asla jifnaa ma aniga macna sabab waa jirtaa qof bilaadka sabab waa gashaa mugtaa sabab waa igashay laakiin dhimo afkayga inay ka been afkayga intuu jiraa inta la geeyay hadaan dhimo dhahe way wallahi ugu bilaad way dhaari kartaa dilka ka hor doodii taagneed iyo wixii dhaxmaray eedeysanaha iyo marxuumka ayaa fadhigan looga dhageystay askar ku sugneed goobta faldambiyeedku ka dhacay askarta waxay isku dagaashay baasto isku dagaaleen wuxuu dhaay markii digsiga ma aragtay laga dajiyay dabka wuxuu dhaay saxaabo ani baahaya ay hayse kis inta igu shub xaga geeyna digsiga sug saxaabo geedka hoostiisa ma tagi kare igu shub ma aragtay ani inta igu shub xaga la aada meeshan ma aragtay wax ma ku cuni kare markii saas oo dhahay marxuumka Allah u naxariistay ninkan oo jiif geedka hoostiisa ku jiray oo soo orday digsiga ma aragtay tuuray meeshii digsiga dhulka yaal digsiga tuuray markuu digsiga tuuray caag saddex la meeshii yaaliyo soo qaatay wuu ku gidii ilaa amarkiis yar saaxiibo oo aan ahay super la dhahayo digsiga wixii ku soo heray soo qaaday oo soo baxay asoo carabkii xagga amal iska taagan oo
oo geed hoostiisa ka joog ayarka subar la dhahay oo imaaday kistas oo digsiga ku soo hirtiyay meesha ee maaragtay ku shubteen hal mar oo qaatay marka aan ceelka ka imaaday waa soo socday dhanka ceelka ka imaaday waa soo socday dhankooda oo soo socday marka waxa arkaya Cabdi Mawlid oo maaragtay qori gacanta saan ugu soo wato gacanta ku soo wato qoriga soo socday waa arkay marka marxuumka dhimana Allah u naxariistay ninkan markoo arkay caaga wuu ka istaagay geeso u baxay marka aan dhankiisa ku soo socday dhankiisa ugu soo socday meesha markoo ninkan u soo dhawaaday ninkan uu soo galay maaragtay laba hadal la isdhaafsaday war Cabdi Mawlid oo isdaji saaxib waxaan badar leeyaa badran la isku ma dagaalay isdajiya maaragtay aadaan hadalkeena uu maqli waayay qorigiisa amaan ku furnoona soo galay hor anayna ma u maleeynin ninkan wax dilay ma isdheen ani waxa isdhahay ninkan maaragtay wixii dhaceen hadda way dhaceen tan maaragtay oo taalo inoo maaragtay la qaybsado ragga soo rabaa isdhahay meeshina maaragtay baalooto ninkan maaragtay oo ku dhuftay ninkii markoo baalooto ku dhuftay ani ninka garabkiisa taagnaay baalootada bartaas ay iga martay anina igu dhacday u maleeyna baalootada geesa u boodo qoriya wati marka gees u booday waa isfiiriyay waxa yar kadib waxa arkaa ninka carabkiyo maaragtay gacantiisa dhiig ka bixayso way igu taala oo dhaa qorigiyo tuuray Cabdi Mawlid ka amaanka xagga camalka soo jirtay wuu imaaday marxuumku ay istaagay markuu soo dhawaaday Cabdi Mawlid oo shaydaanka iskana arawda Cabdi Mawlid hadal ma galin baalootudu ku riday oo ku dhuftay baalootudu markuu riday ninka uu dhacay xabad kale wuxuu dhuftay digsi ishaagay weelka oo dirgaanka inuu ninkan dilayna uma maleynaynin nin garabkaana oo difaac ugu jiro uu haayay oo soo baxay markuu soo baxay marxuumka agteedu taaganaay markuu taaganaay waa hadalena dhaxdooda marin ninka marxuumka marka la soo sibamay qoriginta saas u qabsaday abukuse ninkaana saan u fiiray ninka marxuumka dhiig baayaan arkay xabad kale oo aagi bukuse ninka afkiisa wuxuu dhahay dhantaaga ku-xigeenka xeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanla dhexe Maxamed Xuseen Cumar Sanay ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanaha ay ku xukunto dil toogasho ah qisaasta marxuumka isla markaana xadka looga oofiyo furinta si ay ugu wana qaataan kuwa kale dilkaasi waxa u geystay leeyahay si kama ah ninkaas walaalkeeyo ahay bareer uma dilin way iga naqatay waxa uu sheegay waa bentiis waa isku difaaca waxa inuu san walaal u ahayn waxa cadeynayo marka hore qor ma wadana qorayo doonta xabado ku dhiftay hadaa doonta dhimo yiri raashiki waxa xabad ku sii dhiftay inuu been sheegay waxa cadeynaya haday kama ka tahay markay xabada ku dhacday muxuu gargaar uu sameey waay muxuu u qaadi waay muxuu isbitaal u geey waay inta ma sameeyna dhimo yiri mudana gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh eedeysanaha wuxuu si kas ah oo bareera oo shaki ku jirin marqaatiyaasha maxkamadda horkeena ay cadeynayaan inuu si kas ah u dilay meesha laga rabay inuu ninkaas walaashado oo garabkiisa ah oo wuxuu si kas ah u dilay ninka walaalkiisa ay oo difaaca kula jiray oo garabkiisa ay oo carrada la jiifay ayuu wuxuu u dilay baasta darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa eedeysane Cabdiraxmaan Mawlid Axmed Cali Cabdi Mawlid inay ku xukunto dil toogasho ah oo qisaastii marxuumka oo dilka bareerka u geystay waliba si degdeg ah xadkaas loogu oofiyo laguna togto askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si ay tusaale ugu noqoto in askari kale oo walaalkiisa oo difaac ku jiro oo san u dilin waliba si degdeg ah loogu fuliyo maxkamaddu waa maasata qareenka eedeysanaha ayaa dilkan ku sifeeyay mid kama ah muwakkilkiisa ayuuna u codsaday in lagu xukumo bixinta magta marxuumka xoriyadiisana la siiyo maxkamadda waxa ka codsanaya inay cafiso ambumata inay qaabteedii ugu qaado wadatashi dheer oo ay yeesheen garsoorka ciidamada ayaa waxay go'aan ka soo saareen galkan XW xoogga Cabdiraxmaan Mawlid Axmed ayana maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah qisaasta marxuum XW xoogga Yuusuf Xuseen Cabdulle Yuusuf